guud ahaanba dadweynaha ku nool magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley ayaa si weyn u qaadacay diiwaangelinta madaniga ah ee ay xukuumaddu wado taas oo ay u arkeen inay tahay mid dano gaar ah laga leeyahay isla markaana ay ku sheegeen inay tahay mid gobollo iyo degmooyin gaar ah tirada dadkooda lagu kordhinayo qaar dadkoodu aqlabiyad yihiin hoos loo dhigayo iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladoodii kamid ahaa laakiin ninka hawl wada ee miyiga jooga ma iman karaan magaalada waxaan u qabaa in aan diiwaangelintaasi ay madadaalo asxaabta iyo ummadda loo dhigayo ay tahay ee aanay ahayn wax loogu talagalay inuu sidii ugu habboonaa u dhaco inaanay waxaasi wax dhici kara oo dadku qaadan karo especially reading ay maqli karaanba inaanay ahayn diiwaangelintan madaniga ee 10 sanduuq gobolka intaa leeg 10 sanduuq loo keenay waxaan leeyahay waniyo wax micnalo siisa u meel maraha la keenay waayahay haddaba waxaan u nimaadno 12 goobo may ku fileeyeen gobolka Gabiley laga jawaabtu simple waa maya sababtuna waxa weeyaan degmada Gar'adag oo ah degmo siiya iyo degmada Gabiley oo ah degmo ayaa laga dhigay goobahoodii goobo isku mid ah mana yeelino waxa soo kale waxaan u sheegaynaa qolada ka shaqeynaysa diiwaangelintaasi in aan gobolka laga qaban karin wax diiwaangelin ah ilaa inta goobaha wax laga qabanayo maqaalaha in gobolada iyo degmooyinka la doonayo in gobol aan dad badan ku nooleen la doonayo in loo yeelo cod badan iyo kaarar fara badan oo haddii la ku leeyahay dawladdu gacanta ku hayso gobol dadkiisa iyo shacbigiisa tiradiisa la yaqaanana la doonayo in hoos loogu dhigo haddii qaabka ay noqoto dee diiwaangelintu naloo keeni maayo in loogu talagalo laba goobood waxaan u aragnaa dan ay wataan dad gaari waxaan u aragnaa doorasho ay ka wataan madaxweynaha haddaan tiro badanna la siinayn ma ogolaanayno ismana diiwaangelinayn waa ayaan dar in xukuumadda gobolka ay ka soo baxday ee codka ay ka heshay 57% in ay maanta tiro waxaan geynayaa gobolka Gabiley 12 santo waa loo gelin gobolka Gabiley population ku nool aad iyo aad u tiro badan yahay annagoo si dhawas u dhacsan waxaan macadaynaa inaan qaadacnay diiwaangelinta madaniga Cabdirasaaq Ilka Case Bulsha TV Gabiley.